الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صونك إلهي سبحانه وتعالى باينو قري إلهي سبحانه وتعالى با واجب إنه ويلي سيدو واجب أغيالي أمضيه إنه هريسيبا marka tobankan dambe insha Allah ta'ala aan duceysano ilaahay dalkeena hanu hagaajiyo ilaahay dadkeena ha soo toosiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i ila da'an ilaahay subhanahu wa ta'ala mar walba waa kan garabkeena ah mar walba waa xaalad walba kan oo naga saaro subhanallah إن فضلي ودن وحي نقطة أسيغا الحمد الشكر الملك لله رب العالمين إلهي دلك هنو هجاجيو إلهي دلك هنو توسيو إن شاء الله صومالي إلهي سبحانه وتعالى قلبي قوضها اسكو دايو آمين يا ربي جوار حسين ما أنت وحين ودا قصة عجيب طبعا قصة والبو وحبا لغا قاتا طبعا قف والبو إنا قميدة وحلق يابا إن محايرة داس أما إيسو مرتي أما قف أي سو مرتي uu yaqaano marka wax baa laga qaataa insha Allah wax ka qaata biidnillaahi albaari qisadan waxay ku bilaabanaysaa gabar oo meel degan taban oo 6 caruur haysato marka way yar tahay gabadhii 6deeda caruur iyo ayada isma lahan taban anaga marka waxa weydiinaa ma sha Allah intaan caruur haysataa ya Allah ma sha Allah tabarakallah da'dee ku dhashay ala leeyahay marka wax walba sira ka dambeys maxaa marka gabadhii taban meel gooniye iska degneeday inta badan dad ma u imaan jirin maanta dad isku imaadeen marka maamo kamid ah maamooyinka oo meesha isku imaadeen waxay weydiisay heblaayay marka waliba dadka markay kala baxeen ay labadooda iyo isku soo hareen bizaay waxay dhahday heblaayay ilmaha ina adi dhashay lagu ma moode maxaa kugu dhacay ma sha Allah tabarakallah adoo yariis ma lagu guursaday markii saas la dhahay oohinay barooratay gabadhii way ooysay oohin bismillaah ma waxuna ku dhahay maamadii oo weydiisay adoo yariisa lagu guursaday dhahday way yaabtay maxaa kugu dhacay dhahday maxaan wax xun ma ku weydiinine maxay tahay oohinta intaan la eg ah ooynaysid maxaa kaasi ah maxaa qaldan ma aniga hadal xun ku dhahay ma hadalkayga dhibsatay maxaa si ah maxaa qaldan bal wax ii sheegtay uu aamusinaysay ilmihii wuxuu ku guuleysatay in ay aamusiso gabadhii markay aamusisay waxay dhahday maanta wixii intaan ka ooysay ma ahan hadalkan kaliya aan ku weydiiyay maxaa qaldan wixii qaldan ii sheeg maamadii weydiinaysay waxba qaldan ay dhahday ii sheeg bal maxaa si ah maxaa qaldan ma dhibaato ku haysato ma ninka ku dhibaayo ma yaani maxaa ma caruurta dhankeeda ilaa hada caruurta la ku weydiiyay maxaa dhibo ku haysto markaas waxay dhahday marka gabadhii waxay u bilowday qisadii iyo caruur dhalitaankeeda marka waxay dhahday waxaan ahaa gabar yar ay dhahday oo 13 jir ah iskoolku waxay dhahday dugsiga oo dhexe ah markaas u soo gudbay dhahday marka waxa haysaniyay dhahday bas oo na geeyo qof walba gurigiisa geeyo marka waxa dhacday dhahday baska inta badan yani gurigeyga xoogaa waa fog yahay dhahday qofta u dambeeysa noqda baska qofta u dambeeysa noqda mar walba baska dadka u kaxeynayo waxaan noqdaa qofta u dambeeyso marka waxay dhahday maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa dhacday in ay hurdo ila tagto baski anigoo saaran hurdadii markay ila tagtay waxay dhahday gurigii ninkii baska waday gurigii wuu i dhaafiyay dhahday gurigii aan ku degi jiray ma ikicinin wuu i dhaafiyay aslan qofka ugu dambeeyay ana ahaan jiray caruur ikiciso ama qof ikiciyo baska ku muusan hari jirin ay dhahday aniga unba ugu dambeeyay marka waxay dhahday Allah musta'aan baska wuu i gudbiyay meel uu igeeyay meeshii markuu igeeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ninkii maxay raadaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii meesha wixii qoran way dhacayaan gabadhii waxa ku dhacay in oo ninkii oo meesha ku farxumeeyo gabadhii yarta ahayd subhanallah markuu farxumeeyay hadana yani inuu handado tahdiid ugu sameeyo oo dhaho yani tahdiid waa fahmaysiin oo handado yani oo dhaho hadii aad sheegtid kow inaan ka siinayo hadii aad sheegtid mise hadalkan laga maqlo ogow aduun dambe inaan ku waareen adi tahdiid cunugtan waa iska yartaa 13 jir taban la handaday wax walba ka filo ma sheegayso taban marka waxay dhahday waayahay ma sheegay waxay dhahday wuu isoo waday guriga i keenay guriga markuu i keenay aan degay waxay dhahday xanuunka Ilaahay og yahay ihaayay dhahday
korkayga dhan waxay dhahday indhahayga dhan waa gaduudan yihiin markaas waxaa la dhahay maxaa kugu dhacay maxaa indhahaaga saan ugu gaduudan yihiin markaas waxaan dhahay baska kusoo hurday maba ogeenbo oo ninkan wuxuu u maleynayay marka hadal uu kusoo aqriyay wuxuu dhahay gurigiinan waxaa dhahdaa ninka baska waa i gudbiyay ani waa hurdaayay asina wuxuu u maleynayay inaan degay saas darteeda markaan soo kacay waxaa arkay inuu baska i dhaafiyay markaas uu isoo celiyay anna waa hurdaayay saas ku dheh uu dhahay guriga markay tagtay waxay dhahday maxaa kugu dhacay indhahaaga maanta maxay u barsan yihiin maxaase la soo dahday markaas waxay dhahday ninkii baskiyaa ku hurday wuu i dhaafiyey markuu i dhaafiyey oo meel oo dhexe markaan maraynaa soo nibdaaday dabcan waxaan dhahay ani aaw gurigayga markaasoo isoo celiyey oon sorry uu dhahay makuu jeeda inaad degtaa u maleynay saasoo igu soo celiyey gabadhii waxay dhahday guriga isku xiray dhahday gurigaan galay waxay dhahday oohina ka bixi waaye guriga iskaga jira iskoolka maalintii dab ma aadaysid miyaa lay dhahay ma aadinay dhahday maalintii saddexaad kadaalika iskoolkii ma aadin maalintii afraad waa xanuunsanahay dhahday ani iskool ma aadi karo aan dhahay dhahday iskoolkii marka sidii aan aga harayay dhahday bil aa soo wareegatay dabcan waxaan dareemay dhahday in oo cuntadii aan nacayo in yani الله مستعان أنا دن يعني سكلا عن نقطة مرك واحد جوكتي ده هذا جوري جينا أيدي جوكتي ده هذا جوري جا وحنقول نقول أيها نقول نقول جوري مرك الحمد لله واحد هذا ويل الإجوا وين مجران مرك يعني قبل لا واحد هذا إن الله مستعان أيدي ذي مرك واحد هذا ويدرين شكيا قلي وهي الكرسي سوادي إن الله ما نو يا يلا ما شاء الله عادي معها أيدي waxay dhahday maxaa daaray gabadhan maxaa si qof uma sheegnay dhahday dabcan ayada kaligeeda isla hadlaysa ayadii way soo baxday dhahday way ii imaad qolka igu imaad waxay dhahday idageyso fulaani heblaay idageyso maxaa qaldan maxaa ku daaray waxay dhahday waxba ma idaare may waxba qaldan si runta ah wax igu sheeg sura ayadii inta markay ka martay waxay ka dhalisay horta waxay weydiisay horta goorma ugu dambeysay dhahday wixii dumarka ay ku dhici jireen maxay radaa oo bilihi goorma ugu dambeysay عشان مادام ay yar tahay waqti badan buu uusan ka soconin waqtigaas ay ugu dambeysay dhahday muddo bil hadda ma arkin okay soo baxay dhahday waa soo waday ayadii waxay keentay meelaha oo naagaha oo yar yarka oo xaafadeedka oo lagu baaray keentay waa la baaray dabcan gabadhii waxa ku soo baxay uur inay leedahay ku soo baxay ayadii talaa ku cadaatay maxaa kugu dhacay dhahday maxaa ku daaray yaa se ku yeelay yaa ku qabay anima i qabay dhahday ayay miyaha oohin ayadii waxay dhahday ani arinta ma qarin kare waalidkaaga u sheega waa soo baxday hooyii aabe u sheegtay hooyo waxay dhahday dabcan hooyooyinka talo gacantooda kuma jiraan dabcan talo gacantooda kuma jirto marka waxay dhahday aabihii gabadhii waxaa loo dilay bog iyo xabad waa taqaan bog iyo xabad af Soomaali waa sax mise booda laga isticmaalaa ma aqaan meeshii laga isticmaalo waa beriya laga isticmaalaa I don't know idinka taqaanin bog iyo xabad loo garaacay gabadhii waa la dilay waa la garaacay la tankeeda waxay dhahday waxa qabsanay dhahday caloosha qabsanaya wuxuu rabaa aabo inuu caloosha haraanti igaaga daldal markaas caloosha qabsana waxay dhahday dambigiisa maxaa waa cunugan dambiga uu galay maxay tahay maxaa dhacay maxay radaan yaa warkaas yaa warkayga maqlaay dhahday adeerkayga imaaday adeerkayga meesha igu sii dara wiilka adeerkayga imaad meesha la uu sii dara qof walba imaad balooni amal dhog al isiina Allahu akbar اللهم يسر marka waxay dhahday qofkii imaado meesha baloon haraantiisa socoto feer qofkii wax ugu dhufan waxay dhahday madaxu saas iga yeela ilaahu nacaf rabbiyo gabara ilaahu gabar u dhibnaa wallahi bilaa ilaahu wada dhibnaa marka waxay dhahday qofkan waxba iyeelin waxay dhahday madaxu saas iga yeela qofkan waxba iyeelin heer waxay dhahday waxa dhacday gacanta iga jabtay gacantii markay iga jabtay dhahday gacantii isbitaal weyn ma liigeynin isbitaal xaafadeeda liigey jibsigii dhiwda la soo siiyay dhahday waxa la dhahday dhigeyso hal algu haaya maadaama wadankan ay waxay dhahday wuxuuga iska dhisan yahay mamnuuc waay in ilma la soo xaaqo marka ayagana ma rabaanay dhahday marka bog iyo xabad say iigu dilaaya ama ii garaacaya inay soo dilmaan ilmahay rabaan marka ayaya qorshe soo dejisay dhahday ayay waxay dhahday waa ceeboobaynay maxaa la sameeyaa lahay gabadha maadaama saas ay tahay waa ceeboobaynay maxaan qabanaa intees wax ka bilawnaa seen wax yeelnaa markaas ayaya qorshe soo dejisay waxay dhahday
guri oo baadiyihii ku yaalay gurigaas ya meeshaan tegaynaa meeshaan la geynaa gabadhan ilaa ay ka dhalayso sagaalkeeda ilaa ka galaayo sagaalkeeda markuu galana markay foosho qabato meelaa la geeyaa ama naagaa loo keenaa waa dhaliisanaya cunuga meeshii arkaa la dhigaa macsalaam saas miya haa qorsho waaye hay hala soo wado waxaa lay dhahday dharkaaga bac ku guro boorso ku guro dharkaygaa soo uruursadii ay dhahday dharkayga boorsaa ku gurtay ay dhahday dharkaygoo dhan boorsaa ku gurtay boorsadii markaa ku gurtay ay dhahday waa lay soo wade cunto iyo waxaa la iisoo qaqaaday dhahday waa lay soo wada guriga lay keenay gurigii waxay dhahday awey faare oo ahaa no goormo ahaa guri cidle yaa oo sakiintii ayeeyi abshaxan iyo ku jirto oo mididii ayeeyi abshaxan ku jirto aaba lay geeyay dhahday gurigii lay geeyay gurigii waxaa lay dhahay gacanteedii waa ii duuban tahay dhahday gacanteedii sideeda iigu duubantay waa ii jabsan tahay meeshaan aad joogaysaa ilaa aad ka dhalaysid ya haddaa banaanka isku soo baxdidna ikhtiyaarkaaga lay dhahay waxay dhahday waxaa sameeyay dhahday allah mustacaan meeshii isaga oohina wehel ka dhigtay dhahday waa laga soo kala tagay ilaahay subxaanahu watacaala meeshan shan qarba ma lahan ilaahay subxaanahu watacaala umaan ku sugayay dhahday waxay dhahday kitaaba iska soo boorsadeeda kitaaba ku soo ritiyay dhahday alla quraanka muxuu wehel yahay alla quraanka muxuu wehel yahay allahu akbar waxay dhahday waxa dareemaa dabcan ilmo yar waa hadane in guri magaciiga laga yeeray gurigoo dhan isla qaylinay markaas waxay dhahday dhigaha inta faraha saarto quraankayga iska akhristaa dhigaha faraha gashana dhigaha waxa sameeyay dhahday marooyinka ina cad iyo cad ka jirta dhigaha gashana cashan sa qaylada iyo waxba uu soo qaylinay dhahday waa baxay dhahday waxa jirta marka qol oo qadiim oo qufulana jiray dhahday oo qadiim yani qadiim waxa waa duug qol oo ay xiran marka lama galo qolka waxay dhahday qolkii isku day inaan jabiyo marka waxay dhahday maalin ii dhiibtay dhahday maalintii waxay ugu noqotaa sano labadii maalin laba sano waxay dhahday maalintii aad ay ugu fogtahay maalintii kale kadaalika aad ay ugu fogtahay maalintii yani maalmihii wuxuu igu noqdeen dhahday plastic oo jiid ma aan go'ayninba ma dhamaanay maalintii allah musta'an waxay dhahday qolkii isku day inaan furo bil labo bil marka waxa dhahday labo bil macamul marka ku jiro ayay bil walba iimaanay dhahday cunto ii keenay walaalahay iyo ooyada yaabahay ha sheegin salaam calaykum ima soo dhahaanay dhahday ayay ii imaado wax ii keento cunto iyo waxaas wax ma ka dhamaadeen isoo dhahdo telefoonna ma haystay dhahday telefoonna ma haystaa sheegin ma telefoon waxaas haba sheegin warkooda ma jiraanbo meeshii ayay ugu imaado waxay ii keentaa wixii iga dhamaaday mac salaam meesha waxa yaal waxaan wax ku karsado dhuxul ha dhihin waxaas way yaalinay dhahday guriga marka waxaan isku dayay dhahday qolkii oo duqa ahaa inaan furo marka waa qufulan yahay dhahday waa isku day waa furi waayay dhahday marka waxa bir meesha taalay aan jaq ku siiyay dhahday fak waa ii furnay guriga qolkii galay dhahday qolkii waxa ku jiro armaajo qadiim sakiimo isku xirxiran wax waa ku jiray dhahday marka waa cabsanahay dhahday aan sakiimihiya soo qaatay sakiimadii markaa soo qaatay boorsada gashtay dhahday boorsada meesha Itaaliya gashtay sakiimadii markaan soo qaatay dhahday cabsidii aad igu ziyaaday waxa u malaysaa in inta wax iima maray sakiimadii markaa soo qaatay waxay dhahday quraanka iska akhrisanaa waa iska ooynaa quraanka iska akhrisanaa waa iska ooynaa quraanka iska akhrisanaa 3 bilood waxay dhahday markaan calooshiyaabo nuunowgiya soo nuuxsano isbitaal ha sheegin yaa igeynay dhahday gacanteedii waa ii duubanta hal gacna wax ii ahay dhahday maxay radaa wax iska karsanaa istighfaarta adkaarta quraanka intaas aan ku noolahay dhahday intaas aan ku noolahay marka 13 daqiiqo خلاص marka insha Allah habinna baa idin dhameystira haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo waa idin ogaay Soomaali Maxamed aanayno wax badan ma fiirsanin marka raali noqdo insha Allah habinna baa idin dhameystira haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo had maxay idin ku codsanaa subscribe like share comment hada codsi waa min fadlakum yani waa idin bariya subscribe saara wixii ra'yigiina ah commenti igu reeba bacd Ramadan waxa idin bilaaba haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo إلى طالي رأي قادشو بإذن الله الكريم نمبركي واتسابكا إنستغرامكا فيسبوكا سناب شاتكا وحوال بايدن صوريقا رأي كلا قادشو إلى طالي جمع والبا إلى طالي قادنينا أوكي خيري عاف ماذا اسكوكنا هاي وولاشين جواهر حسين أو إذن له كسر دوادا قلب فرن وجه فرن يعني
channel furan channelkan adinka le waxa adinka rabtiin aa laga soo deynaa biidnillahi albaari khayr iyo caafimaad iyo barako iskugu ducada hanaga iloobina anna ii duceeyo anna waa idin soo duceynaa ilaahay dhammaanteena khayrkaana soo waafajiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu